walaal waxay ahayd kiiska horta wuxuu bilaabmay dhammaadkii 2018 oo baaritaankiisu uu bilaabmay markaas oo ay sheekada ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadeeda ay disha kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa ismiyo maxkamadda laga soo gaaray 2 maxkamadood ay martay. waan gartay markii loo yimid maxaa dhacay booliisku guriga yimid? walaal waxa socday baaritaan baa carruurtii baa la wareystay, hooyadii baa la wareystay, iskuulaadkii baa lala xidhiidhay, carruurtii iskuulkay tegi jirtay, qaarna waxay tegi jireen meelahan xanaanada ah. marka baaritaankii wuxuu socdo kadib maxkamad baa sheekadii ay kusoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday taasoo xukun ah 5 Abriil 2019 xukunkaasoo ahaa 1 sano iyo 9 bilood oo xadhiga iyo masaafuris aanay kusoo noqon karin 12 sannadood waddanka dib ugu soo noqon. waan gartay. gabadhu ma jinsiyadda waddankii haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyey? walaal gabadhu waxay haysataa jinsiyaddeedu waa Soomaali, carruurtuna waa Soomaali. waayo gabadha waxay waddanka soo gashay dhawaan bay soo gashay oo 2012 waddanka soo gashay, carruurtuna kadib bay dalabtay. ma huba carruurta xilliga ay yimaadeen, laakiin hooyadu waxay soo gashay 2012 kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay Soomaaliya ay joogtay aduu dhowr sano kadib bay yimaadeen. oo markaa carruurta iyo hooyadoodba waxay haystaan jinsiyadda Soomaalida oo maaha dad waddanka. waan gartay. aabahood aaway carruurta ama gabadha odaygeedii? walaal carruurtu aabayaal kala duwan bay leeyihiin oo qaarna ay dhinteen, qaarna waddanka ay ka maqan yihiin ma joogaan, hooyadu waa keli. waan gartay. marka wax loo yaroo matalayay ma jira gabadha intii ay u socotay arrintu? walaal 2 looyar ayaa isaga dambeeyey oo looyarka maxkamadda hore hayay waan bedelay, mid cusub baanu qabanay. marka 2 looyar baa mid saddexaadna wuu jiraa carruurta kiiskooda na gaar u hayo arrimaha carruurta iyo hayntooda iyo magaranaysaa ku shaqo leh. kiiskan iyada loo haysto ee la leeyahay matana carruurtana markii la baadhay ee iskuulaadkii la baadhay ee taasiirka ay caddeeyeen inaan wax ilmo ah ama dayac ah oo iskuulka iyo taasiirka midna ay caddeeyeen aanay jirin. keliya waxa lagu eedeeyo oo kiiska lagu saaray oo la yidhi waxa aanu raacnay hadalka carruurta oo carruurtii ayaa yidhi waana la jiraa. marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco. waan gartay. waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay, waa la xidhay kadibna waa la masaafurinayaa. carruurtii xaggee joogaan hadda? carruurtii dawladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad caddaani ay ku hayaan. marka labada ugu yaryar carruurta waa 6, ka ugu weyn wuxuu jiraa 15, ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa 15. labada ugu yararna waxay jiraa midna 3 sannadood buu jiraa, midna 6 sannadood buu jiraa. marka labadaa intii ay xidhnayd maxkamadda hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu xabaanka qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamaddaa dambe dhacayso jeel baa lagu geenaya, jeel baa la geeyey. marka 2 wiilba mar baa labada ugu yaryar loo keeni jiray saacad ama 2 saacadood oo kasta ay noqoto oo ay kusoo booqan jireen carruurtooda. laakiin kuwa kale xidhiir lamay lahayn oo lamay fadhiyin. annagana looma ogola, ehelkii kalena looma ogola, iyadiina looma ogola, laakiin labadaa yar baa loo keeni. waan gartay. waxaad ii sheegtaa ma jira hanaan carruurtoo kale loogu dhiibi karayo dad ay isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu carruur una isagu dhalin hayn karayo? walaal way jirtaayo shuruudaha ku xidhan oo iyada lafteedu waa barofos aan dee fududayn oo magaranaysaa qofku inuu dalbado oo barofos la maro oo shuruuda ay ku xidhan yihiin. marka iyada lafteedu waqti bay qaadanaysaayoo horta imika kiiskan dee dambiyeedkan loo haystay ay tiri magaranaysaa ee waxa loo cusubay ay tahay carruurtii reyd baa yidhi waana la jiraa wax caddayn oo evidence oo proof oo lagu hayaana aanay jirin baa horta kiisku uu yahay oo tana imika aan ku mashquulsanahay. laakiin taa lafteedu way dambaysaayoo lawyer baa u gaara baa carruurta u gaara. taasaanu kala xiriiri doonaa balhabka oo isla wuxuu dhacayaa 15 November ee soo socota ayuu kiiska carruurta dhacayaa oo maxkamadeeda iyana lageynaya. waxa kale oo aan doonaya fariin inaan halka ka faro oo aan u faro magaranaysaa dadka madaxda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama Muqdisho ha joogaan ama Soomaaliland ha joogaan ama Afrika ha joogaan in magaranaysaa gabadhan iyo carruurtani waa dad Soomaaliya oo jinsiyadda Soomaalida haysta. qofkana waa lagu soo celin karaa waddankiisa maadaama uu dad Soomaali yahay dad Soomaali.
وصلت وقت دي جماعة لكن شرع دقيقة وحقوق الإنسان دقيقة عرور يريرو لدينا وتحتري هاي لدينا والحتري هاي أنت هو يدو تتغطى على عرور يريرو كل جد مصدره عرور فينا أنا تبو أرك شرع دقيقة marka waxaan ka codsan lahaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed caruurta hadii la soo celinayo gabadha iyo caruurta way fiicantay laakiin hooyo kaliya inta Soomaaliya lagu soo dhafturo la oran karaysa aqbali hal la weydiyo caruurta meeday hadii ay Soomaaliya ka soo celinayaan way fiicantay laakiin caruurta la soo raacay sharciga in lagu furo oo loo gudsado baan halkan ugu faray